dhammaantiin cid allaale cid fiidiyowgan daawata aad baa u salaamayaa runtii caawa waxaa isugu nimid barnaamijkan oo aan ku taageerinay ra'iisul wasaaraha waxqabadkiisii sanad kadib xasan cali khayre runtii barnaamijkan oo caawa la rabay inay boqolaal qof dad ka badan isugu yimaadaan iyagoo dareenkooda muujinaya anigoo shakhsiyan kharashkayga ula baxayo oo cidna aysan igu taageereen howlkan intaa leeg inaan kareeyo bulshadii reer gaalkacyood oo ra'iisul wasaare khayre waxqabadkiisa ku taageersanay inay isugu yimaadaan kuna bogaadiyaan sidaa darteed goor ay ahayd 12 ama 6 maqribnimo kadib baa howlku in la isugu yimaado ay ahayd marka 1dii markay ahayd ama 7dii baa ciidamo yimaadeen amar bayna waxay ku baxsheen inaan wax xaflada meeshan ka qabsoomayn sidaas waxay kaloo noo sheegeen amarkan in madaxtooyada dowladda Puntland uu si toos ugu yimid kadib markaanu niri maxaa diiday inaan ra'iisul wasaaraha iyaga taageerno oo aanu bogaadino oo aanu waxqabadkii iyo wax uu soo bandhigay iyo xukuumaddiisu ballaarnayd horumarka iyo wadaniyadda lahayd sida ay u shaqaysay oo dhaqaaqday inaan ku bogaadino waxay jawaab nooga dhigeen xataa ma taageeri ka dhaan runtii waa wax laga xumaado dowladda waxaan ka sugaynay inay nagu dhiirigeliso shalay markaan madaxweyne farmaajo soo dhaweynayno oo darbiyada rinjiyeynay aad bay noogu dhiirigelinayeen oo dhalinyaradu way ku qayb qaadanayeen ma garan kara maanta markii khayre aanu damacnay inaan taageerno maadaama sanad kadib ay ku beegan tahay maalinkii la magacaabay waxa ay u diideen ayagana ka jawaabi doona sidoo kale maamulka hoteelka waxay u sheegeen barnaamijka haddii la qabto in si degdeg ah hoteelka laftigiisa iyo dadka barnaamijka joogaba la xirayo sida darteed barnaamijku wuu baaqday ayagana waxaan ka sugaynaa dowladdu inay jawaab cad ka bixiso waxa ay barnaamijkan u joojisay aad baan u mahadsantihiin runtii aniga waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaashii waxaa isoo invite gareeyey walaalkay maxamed jaamac kukay oo ka mid ahaa ama ahaaba ninkii hirgeliyey barnaamijkan isagoo ay ka gashay qarash iyo lacag wax maaragtay cid kore oo lacag siinaysana aysan jirin oo uu ka hadlayay wadaniyadiisa kuna maaragtay dhiirigelinayay ra'iisul wasaarihiisa iyo dowladdiisa laakiin waxaan aad uga xumahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya in ayadoo la bogaadinayo xaflad loo qabanayo ayadoo ay ku beegan tahay ka sanad guuradii ma garanaysaa xilligii la magacaabay ra'iisul wasaaraha in maaragtay dhalinyaradii bogaadinaysay la xirxiro oo ma garanaysaa ciidan la keeno oo la joojiyo